gobolka Gado waxa uu ku yaalaa cidhifka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Xarunta gobolku waa Garbaharey. Gobolka waxa gobolnimo loo aqoonsaday 1974 wuxuu xuduud la leeyahay Itoobiya. Waxaan sidaa odhanaynaa oo xuduud Itoobiya u qoraynaa ilaa inta Ilaahay ogaadeen iyo Itoobiya ka dulqaadayo. Gobolka waqooyi bari ee Kenya iyo gobolada kale ee Soomaaliyaba. Ma bahan haddaan ku tusano gobolku wuxuu xal la leeyahay dhanka Itoobiya, gobolada Soomaalidu degtay ee Liibaan iyo Afdheer. Dhanka Kenyana magaalooyinka Wajeer iyo Mandheera. Dhanka Soomaaliyana gobolada Bakool, Baay, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Badka dhulka gobolka Gado uu ku fadhiyo waa 85,000 kiiloomitir, 32.819 square. Waa bad ka weyn isku darka 5 dal oo hodan ah. 5 dal ee uu Gado badka dhulkeedu ka weyn yahay waxay kala yihiin Denmark oo lagu daray Belgium, oo lagu sii daray Qatar, oo lagu sii daray Singapore, oo lagu sii daray Hong Kong. Isku darka badka wadamadaasi waa 84,000. Tirada dadka ku nool gobolka Gado waa qiyaastii 900,000. Gadada qadiimiga ah waxaa ku noolaan jiray qabiilo kala duwan oo Soomaaliyeed sida ogaadeen Ajuuraan Garre iyo Mareexaan oo ilaa maanta dhulkaas u badan. Qiyaastii sanadkii 1700 Talyaanigu waxaa kula dagaalamay aaga gobolka Gado, gaar ahaan aaga ay maraan Webi Jubba iyo Daawa, beesha Mareexaan ee Daarood. Gobolka Gado ee Soomaaliya waxa uu noqday xudun udubdhexaad u ah danaha wadamada dariska inala ah ee cadaawadu inaga dhaxayso waa Kenya iyo Itoobiya. Waxa kale oo uu noqday goob dagaal oo bishii ugu yaraan 10 iska horimaad ayaa ka dhaca gobolka Gado. Waa gole abaareed dabiici ah oo roob yaraantu ay salka tahay. Itoobiya waxay diyaar u tahay in haddii dhulkan xuduudda la leh ee muhiimka u aanay ka fulin danaheeda uu weligii ahaado masrax colaadeed. Ciidamadii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo intii u dambeysay asaguba ay Gado u qaxeen ayaa ka baxay gobolka Gado kadib markii ay dadka reer Gado iska baryeeleen. Gado intaa kadib waxay saldhig u noqotay isbedel ay ictisaamka hadda ekis al-Ittixaad al-Islaam Hormuud ka ahaayeen, waxayna itixaadkii maxalliga ah ku guuleysteen inay degmada Luuq ka dhigaan mid ka mid ah meelaha ugu ammaanka badan Soomaaliya sanadihii 1990. Markay Gado qabsadeenna waxay fureen madaaris badan oo ku jira markii dambe mucaskarka isku rogay ee Salaaxudiin al-Ayyubi. Al-Ittixaad al-Islaam waxay sidoo kale qabsadeen goobo dhimanaa oo gobolka Gado ka mid ah markii dambe, markii ay aragtay isku dubadhaca, badhaadhaha, nabadda, barwaaqada iyo sahanshiyaha diimeed ee ka socda Gado oo xad la leh Itoobiya. Waxay u dulqaadan weeyeen in cid aan fulinayn danaheeda gobolka ay maamusho. Horumarkaas socdayna waxay u aragtay khatar toos ah. Addis Ababa ayaa la sheegay in ciidankeeda qalabka siday iyo la howlgalayaasheeda ay ku ururisay gobolada Liibaan iyo Afdheer oo madaxad beenaadka kala qaybiya Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gado. Waxay ku andacootay caqabad ku wajahan joogitaankeeda iyo saameynteeda muddada dheer. Dabadeed ciidanka difaaca Itoobiya waxay gudaha u soo galeen qaybo ka tirsan gobolka Gado ayagoo markii hore dagaalka ka bilaabay Doolow. Waxay ku marsiyoodeen al-Ittixaad Islaamka Soomaali galbeed in laga soo maalgeliyo saldhigyada ku yaala gobolka Gado. 1996 ayay markii ugu horeysay ciidamada Itoobiya qabsadeen halka ayuuna ka bilowday joogitaankooda Gado. Dhowr jeer oo ay ka baxeen mooyee ilaa waaga way joogaan dhulkaas, waxayna si rasmi ah Itoobiyaanku Gado u qabsadeen 2006 waayihii duulimaadka Itoobiya. Markii uu dhammaaday bilowgii 2009na waxay sheegeen inay Gado ku sii joogi doonaan magaca AMISOM. Hamiga qabsashada Itoobiya ee Gado ma aha mid la cimri ah, Male Zenawi iyo TPLF. Itoobiyaanku waxay 2 goor hore qabsadeen magaalada Luuq xilligii gumaysiga Talyaaniga, iyagoo mar haystay Luuq 2 sano ka hor intaan Talyaanigu ka saarin. Itoobiya waxay sheegtay inay Gado u joogto xoojinta amniga xuduudeeda iyadoo gacanta ku haysa garoomada, wadooyinka halbowlaha ah, xeeryaha iyo magaalooyinka gobolka Gado. Joogitaanka Itoobiya ee Gado waxa kale oo la xiriira kala dhantaal siyaasadeed oo ku aadan saameyn ay ku kala ilaaliso dawladda Soomaaliya iyo maamulada ay injineerkii sameeyay, ayadoo ahayd Soomaaliya haatan waa dal jilicsan oo wajahaya duulimaad ku aadan dhulka dawlad ahaan iyo calahaan caalamku u aqoonsan yahay. Dadka reer Gado waa shacab u dhaxeeya awoodo iska soo horjeeda isla markaana ka calool xun qabsashada iyo joogitaanka Itoobiya ee muddada dheer gobolka ku sugan. Laga soo bilaabo 2006 waxaa jiray heshiisyo qarsoon oo ay qireen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida Cali Cumar oo sheegay in dawladdu ay heshiis dhinacyo badan la gashay Itoobiya. Waxaa heshiiskaas ku jiray in Itoobiya ay gobolka Gado ka dhigato aag difaac buffer zone oo ay ka difaacto dalkeeda. Dhibka kale ee reer Gado haysta waa kala qaybsanaan dhexdooda ah. Badankoodu waxay u arkaan ka xoroobida xabashada qabsatay gobolkooda mid faa'iido u leh, halka ay jiraan canaasiir kale oo reer Gado ka mid ah kuna sugan gudaha oo iyaguna la safan Itoobiyaanka fulinayana danaheeda. Gado waa gobol halis ugu jiray inuu galo gacan shisheeye kana go'o Soomaaliya.
isku soo wada duub oo xisaabta waqtiga ayaan u dhaafaynaa in reer Gado ay meel walba u galaan sida ay mar kale u hanan lahaayeen dhulkooda iyo inay dhayalsadaan musiibada dul saaran ilaa xilli hore. Juqraafi ayaad igala socotaan madal lagu soo gudbiyo tagtada iyo taariikhda Soomaalida iyo juqraafanka caalamka. Haddaad nagu cusub tahay hubi fadlan bogga inuu follow ku yahay. Haddaad nala socotayna like iyo share bay isugu dirso ugu beer saaxiibo badan YouTube-kana subscribe sar.